maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم سيدي عشرتي هورك aynu ku baranay maanta waxaan bilaabaynaa buugga saddexaad ama fasalka 11aad form 3ga aynu bilaabaynaa sidaad u jeedaan wax kasta waxay ka bilaabmaan ujeedo marka maanta waxaan ka bilaabaynaa ujeedada guud ee buugga 11aad ayaan ka bilaabaynaa insha Allah waayo ujeedadu waa muhiim waxa saad u jeedin yani duubitaan kastaan samaynay ujeedu ka bilaabmayay sababta ujeedada looga bilaabayana waxay ahayd in ujeedadu muhiimadda ay leedahay baruhu fahmo iyo macallimiintu inay fahmaan baa loogu talagalay marka ujeedooyinka buugtu hadday yihiin kii 9aad iyo kii 10aad iyo ka 11aad iyo ka 12aad waa ujeedada guud ee buugaagtu waa iswaafaqsan tahay waa isku mid saas baan la rabaa baruhu inuu ardada ka dhaadhiciyo ujeedadu muhiimadda ay leedahay inuu maaragtay garto ardadana ka dhaadhiciyo sidaan horeba usoo sheegnay ujeedooyinka buugga 11aad ee maadada afka Soomaaliga waa intii aan hore u sheegnay kow marka hore qofku waa inuu waxa weeye inuu horumar ka sameeyo ballaaran dhanka ereyga ama ereyada oo kaydka ereyada ku jira ay badan yihiin baa la rabaa oo erey badan qofku urursado marka labaad xagga ereyeynta naxwaha inuu qaab dhismeedka waa naxwuhu waxa weeye waa dhismaha weeraha iyo sida wax loo dhisayo weeye inuu maaragtay ardaygu horumar ka sameeyo dhismaha weeraha iyo qaybaha hadalka iyo waxa la yiraahdo astaynta afka iyo farwaaweynaysiinta iyo waxaas inuu horumar ka sameeyo la rabaa arinta kale muhiimka ah ee buugaagtu ay xooga saarayaan waxaa ka mid ah qoraalka waa walaxda inuu kuba muhiimsan inta aynu buugaagta ku jirno oo la rabo macallin kasta inuu xil adag iska saaro arinta qoraalka saad u jeedaan yani dadkeena xagga qoraalku aad ma horumarsana marka manhajkan waxaan doonaynaa insha Allah inuu qayb ballaaran ka qaato horumarka qoraalka sida daraadeed waxaa lagu soo daray casharo fara badan aad u fara badan oo ardayga ka taageeraya sidii uu wax u qori lahaa ama qaabkii wax u qori lahaa kuwa badan waynu soo maray haddana insha Allah kuwa kale ayaynu geli doonaa weli waxaynu ku jirnay ujeedooyinka waxaa kaloo ardayga la rabaa inuu horumar ka sameeyo dhismaha weeraha afka Soomaaliga oo la rabo sida luqadaha kale dad afkoodii ku hadlaya oo aan weeraha sida loo dhiso aqoon xoga waa fadeexad bay inaga inay ku tahay qofka Soomaaliga ay fadeexad ku tahay inuu yiraahdo ma aqaani weeraha af Soomaaliga saan u dhisi karo marka baraha waxa laga rabaa ama maalinka waxa laga rabaa inuu xoog saaro sidii uu casharada buugaagta ku yaala oo maaragtay u sugi lahaa ardaygu inuu fahmay macnaha maaragtay isla markaana weerar kasta qaab dhismeedkiisa saxda ah inuu raacay ardayga baa laga rabaa qodobka ku xiga waxa weeye hababka iyo xeerar kala duwan dhambaalada loo qoro waayo dhambaaladu waa dukumentiyada la qoraana way fara badan yihiin mar warqad baad qoraysaa sida ganacsi wareegto codsi shaqo mar waxa weeye waxbarashada codsanaysaa mar sheekad qoraysaa mar warbaad soo tabinaysaa mar maamulahaaga warbixin siinaysaa yani marka wax kastoo la qorayo qaab dhismeed u gaaray sidii aynu casharadii hore kusoo barnay marka baraha waxaa laga rabaa inuu aad ugu kuurgalo aadna u fahmo sidii uu qaab qoraal kasta shuruudihiisa iyo qaabka loo qorayo ardaygu u fahansiin lahaa dhaqanka waa muhiim isaguna because bulsho kasta oo qaab nololeed soo horumarisay luuqadoodu ama afkooda inay fahmaan
waxay ku xidhan tahay in dhaqankii hore la fahmo. haddii aan dhaqankii hore la fahmin ereye fara badan way kugu adkaanaysa inaad fahamtid. sidaa daraaddeed waxaa la rabaa baruhu inuu ardayda muhiimadda dhaqanka dareensiiyo, waayo dhaqanka oo la fahmo ama qaab nololeedyadii hore oo la fahmo waxay keenaysaa afkan aynu isticmaalayno ku hadlayno ereyadiisa, kuwa ku jira mahmaahyaha, kuwa ku jira suugaanta iyo gabayada kala duwan, maansooyinka, inuu ardaygu si fiican u fahmo ayay keenaysaa. sidoo kale waxaa meeshaan ka maqan iyadana markasta suugaanta iyo qaybaheeda, hadday tahay dhaqan, hadday tahay tix iyo hadday tahay tiraab, intaba inuu ardaygu fahmo. waayo nuxurka buugga 11aad sidaa ujeedaan buuggan waxaa la odhan karaa 17 cashar oo keliya. waa buugga ugu yar buugaagta hadda dugsiga sare ee Soomaaliga la soo saaray, laakiin nuxur ahaan wuu culus yahay. tira ahaan xagga casharada wuu ka yar yahay, laakiin nuxurka waa buuxa. marka macalinka waxaa laga rabaa markasta inuu ardayda ku tirtirsiiyo oo aada u fahansiiyo. waxaa laga rabaa 17 cashar maxay sidaan, maxay xambaarsan yihiin. marka 17 cashar waxay u adeegayaan oo maaragtay xirfadihii afka oo sida akhriskii, hadalkii, dhegaysigii iyo qoraalkii. waxay kaloo u adeegayaan erayeynta oo naxwaha, suugaanta, tix iyo tiraaba, maanso, dhaqan iyo riwaayada. soo dhammaan waxqabadyada casharadu waxay u adeegayaan xirfadaha afka, erayeynta, suugaanta, iyo weliba ku darso waxaa la yidhahdaa qofku dee inuu ereye fara badan barto. marka saas waxaa laga rabaa baraha inuu u fahansiiyo ardayda, inuu saa u fahansiiyaa la rabaa oo saa u fahmo minaha maaraynta ama ujeedooyinka buugga 11aad. siyaalaha macalinku u maaraynayo maara waxaa la yidhahdaa inaad dee arrin wixii aad qabanaysid qaabkaad u qaban lahayd, waayo qaababka wax loo qabanaya waa kala duwanaan karaan moogta. marka qaabkii aad u maarayn lahayd waa intii aynu ku soo sheegnay bugaagtii hore oo ahayd qodobka koowaad, macalinku waa inuu ku dhaqmaa habka waxbarista ee ardaygu udub dhexaadka u yahay. oo macnaheedu waxay waxa weeye ardayga shaqada loo diray waxqabadyada uu qabanayo waa inay bataan. ardayga waa in shaqada laga keeno, waa in ardaygu shaqadii qabto baa la rabaa. waayo in sabuurad wax loogu sharxo muggeed oo yara macalinku casharkii waa dhameeyey, in ardayga shaqo loo diro waxaa uga dheef badan in shaqo badan inta loo diro wax badan uu soo qabto ayaa uga dheef badan oo wax badan ka fahmaya. baaritaanka uu sameynayo, xogta uu soo helayo, waxa uu ururinayo, wuxuu ku helayaa maaragtay waxaanu macalinka afkiisa ka heleen ayuu ku soo urursanayaa waxaanu macalinka afkiisa ka heleen ayuu ka helaya. marka taas baana la rabaa inuu macalinku ka hirgeliyo fasalkiisa kuna dhaqmo ayaa la doonayaa saasaa la doonayaa waaye qodobka ku xiga waxaa laga rabaa baraha waxaa laga rabaa inuu ku dhaqmo habka waxbarista iskaashiga ardayda. iskaashiga macalinka iyo ardayga maaha, waa iskaashiga ardayda. ardaydu inay iskaashadaan marka waxqabadyada loo diro in iyagu wada shaqeeyaan, saa daraaddeedna inay xal keenaan iyagu jawaabtii laga doonayay inay xalkeeda keenaan. soo kale baraha waxaa muhiima inuu fasalka dhexdiisa ka hirgeliyo oo ardayga ku tirtirsiiyo baa la rabaa. inuu ardaygu noqdo mid isagu wax baarayo oo wax raadinayo oo xog ururinayo inuu noqdo. ugu dambeyn waa ardaygu waa inuu bartaa qaababka xogaha uu soo helayo, macluumaadku soo helayo, warku soo helayo, inuu tijaabo ka qaado uu eegi karo xogtani sax ma tahay mise maaha. waxaa laga yaabaa marka macallimiinta inay yidhahdaan oo see af baa loo dhigayaa, see buu u tijaabinaya. tusaalahaan oo kale mahmaha baad u sheegtay, inuu mahmahda dadka ka soo dhaxobiyo, ama gabay baad u sheegtay macnihiisa, in macnaha gabaygaasi sheegaya uu sax yahay inuu dee dadka kale weydiiyo. waxaa laga yaabaa dadka kale inay si kale u macneeyaan, dad kale oo xog badan haya inuu helo. marka inuu wixii tijaabiyaa la rabaa minaha waaye muhiimadda waxqabadyada waynu ka soo hadalay, waan si ku celinaynaa insha allah haddii alla idmo. waxqabadyada tanna buuggan ayaa iskale, laakiin su-aasha weydiinta ugu horeyso waa maxay waxqabad
way wada wadaagaan sababta marka weydiintaas jawaabteeda horaad u samayseen sababta waana dood loogu talagalay masalan macallinku oo kale ardada inuu dhex dhigo ay ka doodaan oo kale ama macallimiin buugan baranaysa inay ka doodaan oo kale loogu talagalay marka sababta weydiinta loo soo celcelinaya waxay tahay muhiimadda waxqabadku leeyahay macallinku inuu fahmo muhiimadda waxqabadku leeyahay inuu macallinku fahmo ayaa loo soo celcelinaya waan warkii shalay aynu duubistii kusoo sheegnay buugga labaad mar kale waan ku celinaya horta marka ardayga waxqabad loo dirayo waxaa la rabaa macnaha meesha ku jira waxa weeye inuu xog soo ururiyo xog war inuu keeno baa la rabaa warkan marka uu keenaya muxuu ka anfacayaa wuxuu ka anfacayaa dadku waxaa baa layaa war iyo wax la cunaa lagu nool yahay soo maahay sidaynu shalayga soo sheegnay marka waxa weeye warku markaad heshiid muxuu faa'iido ka leeyahay wuxuu faa'iido leeyahay ereyadaada oo kordha ereyada kugu jiro oo aada u siyaado bata haddii marka ereyadaadu bataana dee ninka qofka dhiiggaaga ah dooda waad ka badinaysaa ila ereya fara badan baad haysataa laakiin haddada ereyadiiba kaa soo dhacayn aan waxba dee dood kasta waa lagaa helaya marka waxa weye dadki waxaad isugu imaanaysaan siyaasad baad isugu imaanaysaan doorashooyin baad isugu imaanaysaan yani dadkan yareen dhalinyarada wax la baraya waa dadkii doorashooyinka mustaqbalka dadka hogaamin lahaa so marka haddadan afkii garanaynin dee ninka afka garanaya doorashaduu kaa helayaa minama doorashaduu kaa helaya wuu kaa badinaya ama miidaanka af lagaga hadlayaba maba imaan kartidba minaa maarag marka kow qofka ereyadiisu inay kordhaan labo waxaa la rabaa qofkan ardayga ah waxaa la rabaa macluumaad kasta ama war kasta iyo wacaal kastaad hesho waxay siyaadinaysaa xirfadahaaga waxay kaloo keenaya inuu qofku fekero waxay kaloo keenaysaa inuu dhibaatada ku xaliyo marka waxyaalahaas oo dhan baa macluumaadka ama xogta ardadu ururinayso ay faa'iideeyaan oo keenaan marka barahana waxaa la rabaa inuu sidaas oo kale u fahmo ardadana ugu tirtirsiiyo ayaa la rabaa waayo qiimeynta ardayga waa intii aynu hore usoo sheegnay macallinku ama baraha waxaa laga rabaa inuu qodobka koowaad inuu firfircoonida ardayga iyo shaqada uu qabanayo iyo si waxqabadyada uga shaqaynayo inuu macallinku la socdo wax la rabaa qodobka labaadna shaqada guriga marka ardayga loo diro waa inuu soo celiyaa lagana saxaa yani warna lagu celiyaa oo dee la yihahdaa waa si fiican baad hawshii u qabatay waad wanaagsan tahay in la yidhahdo xeerka xawaaraha akhriska xisad kasta oo fasalka casharka waa muhiim ardaydu inay akhriyaan oo macallinku akhrisiyo yidhaahdo waa inaad boggaas laga bilaabo ilaa boggaas akhriya saas oo kale waxay kordhinaysaa oo akhriskaasi wuxuu keenayaa ardayda inuu ku dhiirigeliyo hadhow inay wax akhriyaan ay bugaag kale akhriyaan waxaa kaloo muhiima macallinku inuu u diro xilliyada qaarkooda shaqada guriga oo kale buuggaas soo akhriyo xogta ku jirta soo koobo macluumaadkiisa soo si loo dhiirigeliyo ardayga akhriskiisa inuu horumar xagga akhriska inuu horumar ka sameeyo heerka xalinta dhibaatooyinka waayo bugaagta saynu soo sheegnay ardaygu xog fara badan wariyo wacaal fara badan ereyo fara badan buu urursanaya waxaas waxaa la rabaa inay wax ku kordhiyaan ama wax ka taraan xalinta dhibaatooyinka waa la rabaa dood wadaagga saynu hore usoo sheegnay adigoo marka arday baruhu markuu u dirayo ardayda wax u dirayo waxaa la rabaa inuu koox isu raaciyo kooxdu inta badan waxaa fiican inay tiradoodu taf dheeraan oona badan inay tiradu yaraataa fiican oo muhiim arrintaas waa muhiim weeye waayo haddii tiradu badato doodooda badanaysa doodooda markay badataan marka inta badan 6 lagama badiyo marka ardada koox la isu raacinayo 6 qof baa inta badan laga dhigaa si dooda dhexdoodana loo soo koobo natiijada ay soo celinayaan ay soo degdegto saasoo kale natiijada la soo celinayaana ay soo degdegto ayaa laga rabaa inaad maaragtay natiijada ay soo celinayaan si ay markiiba degdeg ugu soo noqoto ayaa laga rabaa marka waxaa kaloo meesha ku jirta haddii aad ardada baruhu hadduu yidhaha ardada idinku isdoorta oo kale tusaale ahaan oo kale nin waliba wuxuu dooranayaa ninkuu jecel yahay iyo qofku istanaysanayaan iyo marka waxaa fiican had iyo goor baruhu inuu la socdo isku isdhexgalka ardayda iyo minaha maaragtay inaan iyagu isdooran oo isagu isu dooro hadba kooxda uu doonayo isu raaciyo aad bay muhiim u tahay qodob ku xigaa weydiimaha dee ardaydu inay ka jawaabaan oo ka warceliyo okay casharka koowaad haddaynu soo qaadano marka ereyeynta waa naxwe
casharkani wuxuu ku saabsan yahay tilmaamayaasha. Tilmaamayaasha ugu horreyn macalinka waxaa laga rabaa ama baraha waxaa laga rabaa ardayda iyo macalinku inay isla gartaan ujeedada casharka. wax kastana waa inaga soo sheegna ujeedadu waa muhiim in la isla fahmo. waayo ardayga ujeedada casharka fahamsanayn in casharka la iska bilaabo wax la iska dhigo xoogaa waxaad moodaa inaanu miro dhal fiican ma yeelanayo oo minaha maaragtay miro dhalkiisa aad u yaraanaya. marka waxaa fiican ujeedada marka hore in la isla garto casharka. ardayguna fahamsan yahay macalinkuna ku tirtirsiya ayaa la rabaa arrintaas. marka cashar kasta wuxuu ka bilaabmaa 3 ilaa 4 ujeedo waa in si fiican loo akhriyo waxa la iska rabo la fahmo. intaa marka la fahmo casharkeena wuxuu ku saabsan yahay tilmaamayaasha. ugu horreyn bal waxqabadka koowaad waxa weeye waa waxqabadkan sidaynu soo sheegnay cashar kasta waxqabadka koowaad ama labaad wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo maandiska. ardayda maankooda yani inay si maaragtay horumarsan u fikiraan oo maskaxdoodu awood u yeelato inay wax xalliso oo dulqaad u leh xalinta dhibaatooyinka baa loogu talagalay. waxa weeye waa hadal sheeko baa mesela lagu siinaya. sheekooyinkaas aynu soo sheegnay qaarna waa dhaqan, qaarna waa cilmi, qaarba waxba laga waa hal xiraale, qaarba wax weeye minaha maaragtay. waxaa laga rabaa baraha inuu minaha maaragtay si fiican ugu tirtirsiiyo ardaydu inay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan. waa xalkoodu waa iska fudud yahay oo way keeni karaan markiiba minaha maaragtay haddii dee loo hawlgalo minaha maaragtay. inta badanna waxaa kaloo loogu talagalay ardayga marka macalinku soo galo in dee dhiig wareegiisa la kiciyo la yaro daaro la yaro kiciyo muhiimaddu weeya minaha maaragtay. isagoo minaha maaragtay dee in la yaro daaro la yaro kiciyo weeye ujeedadu. marka cashar kasta way ku jirtaa. waynu ka arki doonaa waynu soo aragnay waynu arki doonaa insha allah inta dambe. marka macalinka waxaa laga rabaa inuu ka sugo ardaygu inuu shaqadan qabtay ayaa laga rabaa. tilmaamayaasha aynu soo qaadano tilmaamayaal Soomaaliya laakiin Soomaalidu sifana waa la yiraahdaa. waa waxaan Englishka lagu yiraahdo sifo luqada carabiya ama adjective in English waxa lagu yiraahdaa inaga tilmaamayaal weey. marka luqad kasto ama af kasto adduunka jira tilmaamayaasha uu leeyahay. waynu soo koobayna marka tilmaamayaasheena. horta tilmaamayaasheenu marka la eego luqadaha Laatiinka luqada badan oo Laatiinka ah tilmaamayaashu magaca hore ka raacaan. tilmaamana sidiisaba magac buu sifeeyaa. magacu ha noqdo meel walax ama qof ama dad ama wadar ama keli waxay doonaan ha noqdeen kale cid buu sifeynaya ayuu tilmaamuhu sifeeyaa. tilmaamayaasheenu marka inaga waxay luqadaha kale kaga duwan inaga magaca gadaal bay ka raacaan. oo weliga afka Soomaaliga kuma ma arkaysid wacan wiil ma arkaysid laakiin waxaad arkaysaa wiil wacan oo kale. waxyaalaha kale muhiimka loo baahan yahay waxaa ka mid ah hal magac markaad tilmaame gadaal ka raacaysid haddii aad rabtid tilmaamo kale inaad ku seexday inta badan waxaa la isticmaalaa ereyada xiriiriyaasha la isticmaalaa. hadaa tusaale ahaan oo kale wiil wacan oo dheer waxaad wiilka ku sifaysay waxaad ku sifaysay inuu wacan yahay isla markaana inuu dheer yahay. marka xiriiriyahaad isticmaashay waa oo baad isticmaashay minaha maaragtay. marka kolay xiriiryaal kaloo la isticmaalna way jiraa laakiin oodaasaa maaragtay ugu caansan minaha maaragtay marka la isku xidhayo xiriiriyaasha. marka xiriiriyaashu way badan yihiin. kuwa waxay tilmaamaan cabirka ama waxa yani waxaan minaha maaragtay jimayntiisa ayay maaragtay ayay tilmaamaan. tusaale ahaan oo kale haddaad tiraahdid tusaale ahaan oo kale dheer ama gaaban ama dhuuban ama yar hagaasan eryadaas oo dhan waa eryo sheegaya waxa xajmigiisa ama cabirkiisa sheegaya weeye minaha maaragtay. tilmaamayaasha qaarna waxay sheegaan badanaaba waxa shaybkiisa oo kale. oo haddaad wax ku sifaysay for example oo kale 4 gees 5 gees lady 3 xagal waxaasoo dhan waa sifo sheegaysa waxa shaybkiisa sheegaysa minaha waa tilmaamayaal sheegaya waxa shaybkiisa. tilmaamayaasha qaarna waxay sheegaan waa minaha maaragtay waxay sheegaan tusaale ahaan oo kale wacan fiican wanaagsan xun
saas oo kale waa tilmaamayaal iyagu aan lahayn cabir sugan ma laha oo haddaad tidhaahdid qof wiil xun haddaad tidhahdo tusaalahaan oo kale oo lagu weydiiyo lagu yidhahdo imisuu xun yahay boqol ma cabiri karto ma boqolkiiba 10 ma boqolkiiba 100 ba ma boqolkiiba 5 ba lama cabiri karo minaha maal marka tilmaamayaashaas oo kale waa tilmaamayaal had iyo goor humaag aan saxsanayn bay bixiyaan moogta waa tilmaamayaal humaaga ay bixinayaan ama macnaha ay noo soo gudbinayaan uusan macnaha cabir sugan lahayn marka haddaad tidhaahdid gabar qurux badan haddaad tidhahdo oo kale imise qurux badan tahay quruxdiiba qofba siba u yaqaanaa dadka adduunka waa isku mid maaha quruxda waa lagu kala duwan yahay minaha maal qofbaa qof la quruxsan yahay qofbaa qofka kale la foolxun yahay kii adiga kula quruxsanaaba laga yaabaa inuu qof kale la foolxumaado minaha maal marka waa lagu kala duwan yahay minaha maal marka waa cabiro iyagu sugan ma bixiyaan minaha maal saas oo kale waxaa kaloo jira tilmaamayaal waqtiga waqtiga wax ka sheego oo iyaguna maaragtay xagga waqtiga sheego oo kale way jiraan waxaa kale minaha qofka hadde wiil weyn oo kale weyn marka xagga cabirkana way noqon kartaa xagga da'dana way noqon kartaa minaha maal labadaba way noqon kartaa minaha maal labadaba way noqon kartaa marka tilmaamayaashu waa saas had iyo goorna magacyadeena inaga gadaal bay ka raacaan marka tilmaamayaal fara badan samaynaysidna oo iyo baa laysugu xiraa bal hadda aynu eegno dhowr tusaale halkan tusaalayaal waa gadaal waxaa lagu gartaa had iyo goor tusaalayaasha Soomaaliga waxay wataan san oo kale sida wanaagsan oo kale ama an oo kale sida ballaaran oo kale oo kale leh daran xurmo daran oo kale sida qurux badan oo kale nin yar oo kale ereyadaas oo dhan wax weey waa erey sheegay tilmaamayaal sheegay marka buugad inta badan akhriskiisa ka helaysaa wax qabadkeena saddexaad waa isaguna waa wax qabad maandis isaguna ku saabsan oo loogu talagalo qofku inuu sheekadan akhriyo waxay ka hadlayso soo saaro ama waxa laga weydiiyo inuu ka jawaabo minaha maal ayaa loogu talagalay minaha maal waaya qiimaynta waa sidii aan hore u naqaanay waa inta aynu casharka horaantiisa kusoo sheegnay marka waan ka soconaynaa casharka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay qoraalkan marka waxa la qoraya waxaa la yidhahdaa waa dhambaalada waraaqaha marka waa qaybtii koowaad sida waraaqaha loo qoro marka waxaynu ku baran doonaa insha allahu dhowr waraaqood oo la isu qoro qaabka loo qorayno insha allah waa cashar ku baranayna haddii alla idmo saas baana la rabaa ujeedadii weeye qaybtan koowaad saasana waxaana laga rabaa baraha iyo ardaydu inay isla gartaan oo isla fahmaan marka ugu horeysaba ujeedooyinka casharkeena waxaa ka mid ah dhambaalada wareegtooyinka iyo waraaqaha wareegtooyinka akhriyo iyo codsi shaqo oo kale loo sameeyo marka casharka laba wax baynu ku baranaa warqad wareegta ah oo xafiis dowladeed ka soo baxday sida loo qoro iyo waraaqaha codsi shaqo sida loo qoro baynu eegaynaa insha allahu labadaas baynu cashar ku baran doonaa dal ujeedadan waa la isla fahmo waxqabadkan waa kii maandhiska ahaa isna waa maandhis weeye kana wuxuu ku saabsan yahay sawirka iyo sheekadu way isleeyihiin moogta marka saddexdaas garaafe ee halkaa yaale waaweyn oo halkaa koonaha yaala mid walba sonkor baa ku jirta intii ku jirtay marka lagu shubo intaas imisa soo haraysaa lagu leeyahay marka cabir baa lagu siiyey 1/8 ayaa lagu siiyey waa hal sideedaad ayaa lagu siiyey oo la rabaa inaad ku samayso marka sheekada akhriyaysaa wax haddaad u fiirsatay wax adag maaha waa laakiin in yar baa maskaxdaada la yara mashquulinaya minaha maaragtay inaad fahantid loogu talagalay marka waxa weeye wax qabadyadii xagga maandhiska marka waxa weeye waxaa loogu talagalay qofku inuu luqadda isticmaalo inuu ereyo fara badan ka barto inuu fikiro inuu macnaha maaragtay xallin karo dhibaatada saas oo kale ayaa loogu talagalay minaha maaragtay waayo haddaynu soo qaadano qorista waraaqaha wareegtooyinka qaabka loo qoro tusaale ahaan oo kale qorista waraaqaha wareegtooyinka qaabka loo qoro haddaynu soo qaadano
haddaynu soo qaadano qorista waraaqaha wareegtooyinka sidii aynu horeba usoo sheegnay dhambaal kastoo la qorayaa wuxuu leeyahay qaab qoraal buu leeyahay qaab loo kala horeysiinayo tuducyadiisa ama warka sida loo sheegayo loo kala horey meesha ugu muhiimsanna waa halkaas ee la rabo baruhu inuu fahmo hadhow ardayga inaad tiraahdo wareegto soo qoro dabeedna uu suu doono kugu soo qoro lama rabo laakiin waxaa la rabaa qaabka waxaan loo qoray ee lagu siiyey inaad ardayga ku tirtirsiiso inuu raaco ayaa la rabaa yani qaabkan la qoray oo warka loo kala horeysiinayo ama xogta loo kala hormarinayo baa la rabaa in la maarata waa meesha ugu muhiimsan maaragtay qoraalkan hadday ka cayaaraysa door weyn ka cayaaraysa weeye tusaalahaan hadaynu soo qaadano waraaqaha marka la qorayo wareegtooyinka waa arar iyo duluc iyo gunaanad marka ararta maxaa lagu sheegaa waxaa lagu sheegayaa waxay ka hadlaysaa sababta warqadda loo soo qoray waana marka u horeysa sheegtaa warqaddan sababta loo qoray marka ku xigtana yani dulucduna waxay ka hadlaysaa waxa go-aanku farayo ama ka reebayo waayo warqad dowlad ka soo baxday xafiis dowlad waxbay ku faraysaa waxbay kaa reebaysaa moogtahay marka dulucdii warka waxa la rabay in la yeelo baa lagu soo qoraa gunaanadkana waxay ka hadlaysaa masalan oo kale dee nidaamku markuu nidaam dowladeed jiro haddii waxaan la fulin waayo waxa ka imaan kara baa ka ugu dambeeyana lagu sheegaa oo micnaha mararka qaarkood waxaa laga yaabaa gunaanadka in lagu sheegay ganaaxaasana waxaasan waxaa la yidhahdaa tusaalahaan oo kale waxaa laydinka filaya warkan laydiin sheegay inaad saa ugu hoggaansan sidaas iyo shaqo wacan oo kale inaad u hoggaansataan macnaheedu waxa weye haddii marka shaqadii wacnayd la waayo hoggaansankiina la waayo de markaas ciqaabti marka ay imaanaysaa laakiin waxba lama xuso lama yidhaahdo ciqaab marka tusaalayaasha waraaqaha sida loo qorana bal haynu hal tusaale fiirino hadda tusaalahan oo kale fiiri intaas hore saad u jeedi waxa weeye waa warqadda intii qaybtaa hore soo maaragti waa tudaca koowaad waxa weeye wuxuu noqonayaa cararti tudaca labaadna waa dulucdii warka tudaca saddexaadna waxa weeye waa gunaanadkii warka lagu soo xidho halkaa marka waxaa lagu soo xidhayaa warbixintii ugu dambeysay ayaa lagu soo xidhayaa minaha marka inta badan warku waynu isku sinsanaada hadda halkan oo kale waan ilowday inay isku sinaatay ahayd isku maaragtay isku xidhnaatay ahayd moogtay sarabiyood waa magac beer hore muqdisho loo aqoon jiray yani qarniyaal hore de oo 1000 sanadood ka hor iyo magac niman qoraayi ay sameeyeen oo markii la turjumay noqday sidaas anaa maaragtay buu ahaa moogtahay waxqabadkan haddaynu soo qaadano shanaad waa waxqabadkii loogu talagalay qofku xagga ereyada inuu kordhiyo oo waxqabad kasta oo cashar kasta ku jira loogu talagalay nuxurka uu xambaarsan yahay waxa weeye qofku inuu ereyo fara badan tafsiirkooda iyo macnahooda uu barto ayaa loogu talagalay marka qaabka looga shaqeynaya waxa ay numberkan labaad sana tirsiga labaad ama tirsiga saddexaad tirsiga lixaad oo kale halkan mid buu leeyahay marka macnahaas erey waafaqsan yahay ku jira halkan marka waxaa la ereyga waafaqsan hortiisana tirsiga lagu qoraal rabaa saas oo kale minaha dhowr jeer horena waan soo marray waa waxaan iska fahansanahay qiimeynta ardayga ee fasalka iyana waan soo marray horena u soo marray waxaan u malaynayaa casharka afraad isna wuxuu ku saabsan yahay falkaab ayuu ku saabsan yahay falkaabka horena waynu usoo dhiganay haddana insha allahu waynu taataabanayna ugu horreyn baraha ardayda isla gataan ujeeddada casharka inay isla fahmaan ayaa laga waayo ujeeddadu waa muhiimadda in ardaygu meesha loo socdo uu fahmo waxaa la hiigsanayo inuu garto weeya minaha maarta marka baraha waxaa laga rabaa inuu ardayda ku tirtirsiiyo ka doodaan ka wada hadlaan ujeeddada casharku waxay tahay inay isla fahmaan ayaa la rabaa okay waxqabadka haddii aynu u gudubno markaas koowaad haddaynu u gudubno waxqabadkii maandhiska loogu talagalay ardaygu inuu ka faa'iido xalinta dhibaatooyinka inuu ka faa'iidaysto waayo intaa bugaagtu waxay kordhinayaan qofka awoodda xalinta dhibaatooyinka yani sababtan ujeeddada ugu celcelinayno ama waxaan in la fahmo ama ujeeddada laga leeyahay tahay waxa weeye
waxaaba dhici kartaba yani ilaa xad maadada Soomaaliga dadku inaanay fahansanayn ama muhiimadda ay xambaarsantahay inaanay garanayn nin macallin ah oo Soomaali dhiga ayaa nin kale aan Soomaaliga dhigin laakiin maada kale dhiga ma wuxuu ku yiri adigu maxaad dhigtaa si Soomaali kasi Soomaali maxaad ka dhigaysaa maxaa soo dadku kuma hadlaan maxaa laga dhigaa binaama yani waxaad fahmaysaa muhiimadda afku leeyahay badii inaan la fahansanayn inaa maaragtay waxaa lagu soo qoray in la kordhiyo oo buugga loogu soo daray ereyada inuu qofku yeesho awood erey oo badan awood xallin dhibaato ayaa loogu talagalay markastoo ereyadaada iyo arrimo badan aad xallisid waxaad ka faa'iidaysaa manaa awooddaada afka ama luuqadda aad u leedahay baas kordhaysa manaha maaragtay saas oo kale falkaabku muxuu yahay falkaabku waa ereyo faahfaahiya ama wax ka sheega sida falku u dhacay waliba waxay sheegaan falku meeshuu ka dhacay siduu u dhacay iyo waqtigu dhacay intaasay sheegaan marka waa ereyo kooban oo marka waxaa la yidhahdaa waxay waye meel ama si ama goor saddexaasay u kala baxaan aan eegno balanta tusaalayaasha ay ku jiraan haddaynu falkaab gooreedka soo qaadano waa minaha falkaabkii waxaan u kasana falkaab gooreed iyo falkaab meeleed iyo falkaab siyeed saddexaasay u kala saa falkaab gooreedka haddaynu soo qaadano cali baa barqadii arkay waa falkii yaa falkaa arkayda sameeyey cali baa sameeyey oo goormuu arkay barqadii buu arkay saaka barqadii buu arkay minaha baabuurku hadda ayuu ka yimid afgooye tusaale ahaan oo kale marka ereyga hadda waa waqti shalay baan xaashi u diray walaalkay shalay waxa weye waa falkaab gooreed weeye galab walba iska wax u qabso baan aadaa marka galab ereyadaasaa loo jeedaa hawshu waxa ay dhammaanaysaa gadiidka waxaa la yihahdaa marka qoraxdu halkaa dushaada ku beegan tahay oo saa kugu beeganto adiga iyo harkaaga waad isla ekaataan saa isugu beegantaan waxaa la gadiid waa xilliga duhurka intaan salaada la gelin ka hor weeye baa gadiid la yidhaahdo Soomaalidu xagga waqti bixinta aad bay ereyada maartay ugu badnaayeen minaha maartay falkaab meeleedkana waxaa ka mid ah tusaalahaan oo kale falkaab meeleedka waxaa ka mid ah shimbir baa aqalka dushiisa saaraysay dushiisa ereyga dushiisa waa falkaab sheegaya meesha minaha maartay shimbirtu ay ahaatay meeshay saaran tahay bisad baa kursiga hoos fadhida fadhigeedu waxa uu ka dhacay bisada fadhigeedu wuxuu ka dhacay hoosta kursiga uu ka dhacay qalin waxa uu yaalaa miiska korkiisa soo falku wuxuu ka dhacay miiska korkiisa ayuu ka dhacay minaha maartay saas oo kale haddii aanu soo qaadano waxqabadka saddexaad isagu wuxuu ku saabsan yahay waa falkaabkii halkan oo kale hadda waxaa lagu yidhi sheeko 15 sadar ah ugu yaraan ku jiraan 20 falkaab inaad qortid ujeedada laga leeyahay waxaa weeye ardaygu inuu si gaar ah u barto ereyada falkaabka inuu ardaygu si gaar ah u barto ereyada falkaabka ayaa laga leeyahay su-aasha ku xigtaan ayana waa la mid oo ereyadii falkaabka ayaana la wadaa qiimaynta fasalka hore inuu soo maray way badan tahay insha Allah saasaynu kaga gudbayna qiimaynta fasalka